بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لأوليائه أسرارا مبلغة من العوام، وأشهد أن لا إله إلا الله المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الكائنات كافة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب كان مقعس وحالي هذا البيان النوراني بشرح تشطحات الإمام العالم الرباني عبد القادر الجيلاني. مقعس كتاب كاس يعني سوق لنا إن شاء الله تعالى، وفسر كيسان سوق لنا مركا كتاب كان تفسير كيسا وحا فسري أنا فسرايا oo la yiraahdo Maxamed Cali, marka oo tilmiidkii labadii caarif billahi taala, labadii sheekh oo imaamyaalka caarifiinta ahaayeen. ilaahay caarifka waxa waa darajo weyn oo qofka markuu gaaro yaqiin uu gaara caarif la dhahayaa. labadii caarif tilmiidkiisa anigoo midna uu yahay labadaas caarif sheekh cabdiraxmaan bin cumar alwarshiikhi, midka kalena uu yahay sheekh cali cambare raximahumaa allahu tacaala raxmat alabraar oo maqdashi ah. marka kitaabka fasirkiisa alxamdu mahad lilahi ilaah iskale alladii wahaba u hibeeyey liowliyaa'ihi owliyadiisa asraaran asraar muglaqatan la xiray min alcawaami caamiyaalka. وأشهد وحان قرايا أن لا إله إله كلا أو عبادة حق له إنو نجرين إلا الله إلهي موية، وإلهي عن هين إلا الله إلهي موية. السيا متيستي عبادة ذا اللي وانا أبوري المستغني كافتون عن كل ما سواه وحي كسو هران ككافتون، المفتقر إليه أباهي كل ما عداه وحي كسو هران. وأشهد وحان قرايا أن محمد النبي محمد رسول الله إلهي رسولك إنه يهي سيد الكائنات، كائنات كأهاذين أو إلهي أبوري سيد كودها كافة ضمانتون. والصلاة نحريس والسلام نبتقليو على سيد المرسلين رسول يالك إلهي أصدر السيد كودا كوركيسة الله يالو، وعلى آله آل كيسة وأصحابه أصحاب تيسة والتابعين كوي راعين وأصحابتك كدن بيانو الدروس كقاتين بإحسان كراعين إلى يوم الدين. إحسان نفس الدولة إحسان فلايان دين تهدا قادتين نفس الدولة إحسان فشل، هذا جنك وقلاية. أما بعد فهذا كتاب واي ميسر وسهل لفهم أقوال أصحاب الأسرار. أسرار إلهي أوبحيه asxaabtaas hadallada ay ku hadlaan oo qof kasta oo alif beetada ama kowga alifka jooga uuna fahmi karin yuu fasiraya. xiina taxadathuu markay ku sheekaysanayaan oo ay hadlayaan hadallada ka imaanaya oo qaaliga ah bishukri muncimi alasraari, asraarta ilaahay ugu nicmeeyey shukrigiisa markay ku sheekaynayaan hadallada kasoo dhacaya oo qof kasta uuna fahmi karin yuu fasiraya kitaabkan. walaqad samaytu waxaan ku magacaabay biishaaratin ishaaro min saaxibi kitaab aliijaaz, kitaab aliijaaz la yiraahdo oo faraa'ilka ah oo sheekh bashiir la yiraahdo uu alifay. sheekhaas yaa ii ishaaro yiri kitaabkaas البيان النوراني بشرح تشطحات الإمام العالم الرباني عبد القادر الجيلاني. kitaabkaasi ku magaco marba inaan fasirto kitaabkaas haddaa isku soo duuday oo fasiraadii labadii caalim aada wadatid, marka anigana waxaan ku darsanayaa uu yiri halahaas keliyaan ku darsanayaa uu yiri magacaas albayaan النوراني بشرح تشطحات الإمام العالم الرباني عبد القادر الجيلاني. wuxuu fasirayaa tashaduxaad waxaa la yidhaha kelimaadka koreynta keenaya oo aada isleedahay hadalkaas koray asiga ma lahaan karo aada isleedahay oo marmar waaweyn ay ku hadlayaan yuu sharxaya. ولقد طلب مني وحي ويديسي الدكتور شيخ حسن شيخ محمد شيخ علي الشيخ خالي
doctoorkaasaa iga dalbay wuxuu yidhi kitaabka la yiraahdo munaaqibka ah inaad fasirtaan kaa doonaynaa ayuu yidhi biictiqaadihi alxasani ictiqaadka wanaagsan oo xaggayga uu ka haysto aniga darajadaas ma gaarinayuu igaa i weydiistay an ashraxa inaan sharxo tashaduxaati alimaami alcaalimi arabbaniyi tashaduxaadkiisi caalimkii rabbaaniga ahay hadallada waaweyn uu ku hadlay oo qof kasta uuna garan karin inaan sharxo faqabiltu minhu waa ka aqbalay wamaca dalika kaas maciisa annanii aniga aclamu waxaan ogahay ashadda alcilmi ogaashatan ugu daran annanii lastu ahlan arrintaas ehel inaan u ahayn lidaalika arrintaasayto oo fasiraada hadalladaas fasiraadooda ah in baabkaasayta aan geli karin waa iska ogahay cilmi ahaan wafasara lii waxaa ii fasiray maca jamaacati jamaaca iyadoo ila jirto min alculamaai culamada ka mid ah asheekh cabdiraxmaan bin ow cumar yaa ii fasiray almurabbi i rabeynayey oo xagga diinta xaggeeda alcaarif billaahi tacaala ilaahay caarif ku ahaa jazaahu llahu tacaala canaa khayran xaggayna allah ka abaalmariyo waha ana aniga fii awaani sharxiyga saacadihiisaan ahaaday haddeer sharxiyaa gudagalayaa fa aquulu waxaan leeyahay mustaciinan billaahi tacaala ilaahay anoo kaalmaysanaya abda-u waxaan bilaabaya bisharxi sharxayga alladii aradtu aan doonay biiqdaarillaahi tacaala ilaahay karsiintiisa aan ku doonay iyo wa bifadlihi fadligiisa iyo wa biixsaanihi ixsaankiisa waxaan ku bilaabayaa kitaabkaas bias'ilatin su-aalyaalo wa ajiibatin iyo jawaabyaalo liyashula su u sahlanaado fahmu tashaduxaati kelimaadkii waaweynaay fahmidooda lilimaami alcaalimi rabbaaniyi u sugnaatay qadasa allahu sirahu taqwadiisa saafi ahaan allah u ziyaadiyo wanawara dariixahu qabrigiisana allah iftiiniyo aamiin ilahu aqbal uma ashraxu waa sharxayaa in shaa allahu tacaala ilaahay hadduu doono biasmaai illaahi alxusnaa waxaan ku xijinayaa asmaa ullaahi alxusnaa yaan ku xijinayaa sharxooda almanduumati la tixay lilcaalimi rabbaaniyi sheekh cabdulqaadir uu tixay aakhidan anuu sharaxaas iyo fasiraadaasayto ka iftiinsanayo oo ka qaadanaya min sharxi sheekh cabdilmaqsuud almisri sheekhii cabdilmaqsuud ahay oo misriga ahay jazaahu llahu tacaala canaa khayran xaggayna khayr allah ka abaalmariyo huma nadartu bicayni lfikriyaan ku xijinayaa oo tashaduxaadka uu ku jiro wa arjuu min allahi tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa an yuyasira lii itmaamahu taamyeelidiisa ilaahu inuu ii sahlo wa dabcahu daabicidiisa inahu ilaahay calaa maa yashaau wuxuu doona qaadirun ku koran waaye wa bilijaabati ajiibidana jadiirun ilaahay xaqiiquu ku yahay oo wax kuma aha marka kitaabka 3 shayyaa ku jira as-ilooyinkow waxaa ku jirta asmaa-ulxusna sharxidooda iyo kelimaadkii waaweynaa sheikha uu ku hadlay fasirkooda wahaaka al-as'ilata su-aalyaalka qaada maca alijwibati jawaabta maceeda su-aasha kaawaad waxaa malculuumu culumta maxaa waaye alatii yajibu ay waajibaysa cala almunkiri kan inkirahaya limaqaalaati alowliyaai owliyada maqaalaadkooda kan inkirahaya culumta ay ku waajib tahay inkiraad haba la yimaadee laakiin culumta uu haysto loo baahan yahay maxay tahay marka loo ogol yahay inuu inkiro awalu maa yajibu kan waajibaya kan ugu horeeya cala almunkiri kan inkiraaya maqaalaadkooda xataa yasuuga lahu linkaaru inkaarka ha u hidgalee calaa aqwaalihim qowlyaalkooda uu ka hortago wa afcaalihim afcaashooda wa axwaalihim axwaashooda an yacrifa inuu yaqaano yaa loo baahan yahay 70 shay-an 70 shay oo min alculuumi culumta ah culumtaasayta markii uu ka buuxsamo markaas waa inkiri karaa haddii kale ma inkiraadiisa ma soconayso su-aasha labaad waxaa waa udkur shay-an shay sheeg minhaa culumtaas ka mid ah jawaabta waxa waa idilaacuhu inuu soo daalacdo uu soo ogaado uu soo barto cala alaxaadiidi axaadiista wa manaasici al-a'imati imaamyaalka manaasicdooda oo axaadiistaas fasiridooda
ay iskaga hor imaanayeen walmujtahidiina mujtahidiinta diinta kusoo dadaaleen oo ka qabteen asxaabtii wa a'imati alfiqhi fiqiga imaamyaalkiisa wa a'imati alcaqiida caqiidada imaamyaalkeeda wa a'imati tasawufi tasawufka imaamyaalkiisa kulli waa imaamyaalo waxa waaye tasawufka waxaa laga wadaa dad waxaa jira ilaa man ata allaha biqalbin saliimin ku shaqeeya aakhiro waxaa nabadgelaya qofkii qalbigiisa uu saliim yahay oo dhahayo waxaa shardi ah weysada keliya shardi ma aha waxaa shardi ah qofka qalbigiisa inuu waxa xun ka saafi garayo xasadkii iyo shir balaayo o dhan dad dhinacaas mareen imaamyaalay leeyihiin oo diinta ka soo saareen wa an yacrifa inuu yaqaano asraar alkitaabi kitaabka asraartiisa wasunnati sunnada asraarteeda waluqati luqada carabiga ah walmajaazi majaaz ilan carabiga majaazuu leeyahay iyo xaqiiqa wax la yiraahdo luqada carabiga ah walisticaaraati isticaaraad luqada carabiga isticaaraaday leedahay qur-aankii xadiidkana isticaaraadkaasa ka buuxa lianna fii aayati qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum meeshan waxaa soo gelaya majaazkii aayadaas qur-aanka ah oo dhehaysa qul yatawafaakum waxaa ini oofsanaya oo nafsada idinka qaadaya malakulmowti mowtka malagiisa aladii wukila bikum niila wakaashi fiihi aayaddaas waxaa ku jira majaazun majaaz caqliyun oo caqli ah luqada carabiga inaad taqaana la rabaa majaazay leedahay qur-aankana wuxuu kusoo degtay luqada carabiga ah majaazkaas wuxuu dhex galay ay fil isnaadi isnaadka nafsada qaadideeda lagu tiiriyey malakulmowtka aayad kalaa jirta oo majaaz aan ahayn laakiin xaqiiqadii ah aayaddaas waxay leedahay allahu ilaahay yatawafaa al anfusa nafafyaalka ilaaha oofsanaya xiina mowtiha markay dhimanayaan nafsada waxaa qaadaya ilaaha qaadaya qofka markuu dhimanayo qofka aan kasaynin tanfiyaha xaqiiqatun xaqiiqa ku jirta qofka aan garanaynin xaqiiqadii iyo majaazka oo luqada ku jirtay wuxuu leeyahay qur-aanka qaladkiisa waa badan yahay mar wuxuu leeyahay malakulmowdaa qaadayo mar ilaaha qaadayo yuu leeyahay marka ma kala saari kara xaqiiqadiina ma yaqaano majaazkiina ma yaqaano famathalan idaa akhada hadduu qaato almufasiru kan fasiraya lilqur'aani qur-aanka fasiraya alxaqiiqata xaqiiqada hadduu qaato wahiya aayatu aayadii waa alakhiiratu dambe aayadda dambe ilaaha nafsada qaadaya waa xaqiiqadii wa ankara uu inkiro al-aayata aayadii allatii fiiha almajaazu majaazka uu ku jiray aayadda kale oo majaazka ku socotana waxaa malakulmowda qaadaya wahiya qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum yakuunu kaafiran wuxuu ahaanayaa gaaluu noqonayo xaqiiqadii hadduu qaato oo majaazka uu inkiro maxaa yeele qur-aanka wax ku jira oo majaaz ah yuu inkiray marka wuxuu noqonaya gaaluu noqonayo wahiya tan majaazka uu ku jira qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum saan u sheegna wa liannaha gaal wuxuu ku noqonaya min alqur'aani qur-aankay ka mid taha qur-aankii uu inkira qaar marka waxaa la rabaa xaqiiqadii inuu yaqaano majaazkiina inuu yaqaano xaqiiqada waxa waaye wax kasta ama malaga naftiisa ilaah abuura xarakaadkiisana asaa abuuray asaa soo marsiinaya xaqiiqadii majaazkana waxa waaye axadkii lasoo marsiinayay sidaas daraaddeeda majaazka loogu magacaabayo wa an yacrifa inuu yaqaano haddana waa loo baahan yahay asraar sunnati sunnada asraarteeda lianna fii xadiidi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falaa yasqiyanna maa'ahu zarca gayrihi xadiiskaas oo macnihiisa uu yahay man kaana yu'minu billaahi ilaahay ninkii rumeeyey walyowmi alaakhir inuu rumeeyey yowma alqiyaamo ilaahay inuu awood u leeyahay falaa yasqiyanna maa'ahu biyihiisa yuuna waraabinin zarca gayrihi qof kale zaraciisa yuuna waraabinin fiihi kinaayatun meeshaas kinaaya ku jirta lianna almaaa biyaha aladii fi lxadiidi xadiidka ahaatay almaniyu manidaa loola jeeda wazarca zaraca aladii fi lxadiidi ahaatana alxamlu uurkaa loola jeeda marka
سؤال سدحد وحوا فكيف إذا سألت أحد هذا سؤال من الذين كوي كم يدعون الشيغنا يان العلم علمك فقلت له أتراهد كيف نفسر هذا الحديث حديث كان سأفسرنا الذي سبق ذكره حسكي سأصهر مري قريبا مرلو سأفسرنا هذا تراهد فقال يرى هذا واضح وإسكعد هاي أنا أقول مركا أسرار السنة وحا كجرة وعدها يرى فمثلا إن كان هناك رجلان ماشى صديق لون جيران متجاوران أو درس ولهما مزرعتان لما بيرو يرير إليهين فبلغ الماء على مزرعة أحد الرجلين به إيجاران مد بيرتيسا قبل مزرعة الآخر كان انتين جارين أو مد أي كسوهر مران فمنع الأول كان هراء بيها يكسوهر مرين بيرتيس يكسوهر مرين الماء بيها يحبسه من مزرعة جاره درس كيس بيرتيس وكحبسه مستدلا أسوء دليل سنة بهذا الحديث حديث كان صحيح قول كيسا والصحيح سيداس دو كفسره وحلو لي جدا معنى ما له قف لaba qofood laba beer isla leh oo mid biyaha ay soo mareen markaas kii kale biyaha ka reebay xadiidka saas uu ku socdaa marka xadiidka marka waa sax ninkaasi biyaha uu u diiday ninka kale uu diiday sax waa xadiidka haduu nin saas ku fasiro ninka dadka diinta sheeganaya وهذا معنى الحديث يرى حديثك معنيه سوى ساس ولجديسه ماذا تقول له محل هذا تقول له حلدا أخطأت وقفتي يا جاهلو تعلم برو علوم البلاغة بلاغة علوم تيدا وأنت أديقة كمان أيالا متى أحد فسري وأمري أمر الله إن قلت كن يكون وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي أحد فسروه كلامته أو يكون سعته وأمري يعني الدعاء إذا أمر الله إله إفري إن قلت هدان إله كن أهو لي معينا إله كو كالمير نقو يكون أرنتي وأهانيسا وكل شيء كستا أو دعوينك يكمل بأمر الله إله إفري فاحكم بقدرتي قدرتي إذا اللي قدرة حادثة أدونك إسكالي هاي حكمي مركا فسراد يدو ساس أي تاي هذا أنا أنسي عدينين شرح أنكسي عدينين نين فسري سيدا سيان إهن أفسري يا لمي تاي ولم يعرف أنا قرن انقسام الأمر أمرك إنه قيب سماء إلى 3 معاني 6 معنى وأمري أمر الله ينفسرها ويري من يقانو أمرك نفتيس إنه 6 وقيب سماء حق بلاغة حقيقيا أمر حقيقي التماس أمر التماسه والدعاء أمر دعاء ولم يعرف أنا قرن العقيدة عقيدة أي أن هناك ماشاس قدرة إنها حادثة التي فيها الكسب كسبك وكجر أنك وحواي قدرة حادثة اسكال هاي تن إلهي ونو حسابه وهذا خير سمينه أو أنك أبال مرينا هذا شر سميننا ونو عذابه تاسا قدرة حادثة ليرا قدرة حادثة أصونا قرنين أمر كان 6 إنه قيب سماء أن قرنين ننفسروه كلامته كما قال تعالى إلهي سويري لها وحي لها ما كسبت نفسده وحي كسبته وعليها كركده وحي له عذابها ما اكتسبت وحي كسبته وقدرة تنجيزية أو عن كلا قرنين قدرة عن كلا صارين قدرة كلا نوحل إلى تنجيزية شيء كست إلهي أدونتد أبولتان كيسا أما باب إنتيسا إلها إسكالب مركا قدرة تنجيزية لينا تاس تنعمل كوساب سنة قدرة حادثة لها قف قرن إنه فسره وأمري أمر الله أما إذا فسر هدو فسر الماء بها في الحديث أهاتي المنية هدو كفسره والزرع وفي الحديث أهاتنا الجنين عنق علوش كجر وكفسره وبعد ذلك مركز بعد قال ويراه فمثلا إذا ضلق رجل زوجته ناكتي هدو فره ولها حمل أور إلى صغير ير حوالي 2 شهرين لبا بلود لا يتزوج أحد أو من الرجال رجع كمد لا يتزوج يون قرسن أحد أو من الرجال رجع كمد ولا يسقي منيه منذي سنيون ورابين الحمل أورك الذي للمطلق كيف فري أسقنا
لين كيف رأورك علوش وحوجرين تقول له وحد ليه عرفت معنى الحديث حديثك معنيه سواء فهمتي والحديث حديث كان يتعلق وحكو تعلقه بالعدة عدة إلا نايت هدين لفورة إلهي عدو صاري إن عروش وحكو جيران لينك يهرقو جيران إيا كان ساس عدة سوكو صابسنا حديث سؤاش أفراد ما هو العلم علم محاوى الشرعي وما هو علم الباطن علم الباطن محالي هذا قفك وحال ربا مسكحدي صورت إنه يكون جرته علم الشرعي يعني إنه جره علم الباطن إنه جره تاس نوالو باهيا جوابته وحاوى العلم الشرعي علم الشرعي واضح وعدي وهو الذي أرسل به نبي الله موسى كاللوسو ديبوا نبي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام الصلاة ليراد السلام لبدا وكركود الله يرو كاس وحال لها علم الشرعي وتوريد إيجاه وعلم الباطن وهو الذي كيواي قال الله تعالى إلهي أجر فيه فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما بمعنى وحوى خضر إيوه يا عبد قالوا لي جيدا النبي موسى يحركي الله السعودي وحي هلين الدون عن سيني علم للدنيا ويسمى أيضا وحلقوا على العلم اللدني والي هذا علم الكشف والي كاس بمعنى اللوح المحفوظ كو أركاي وفكست وحي قرن يو أركا مركا علم قرصون أو لو كشفي أسجل ويمثل رسول الله موسى نبي موسى وحي مثلا مركز علم الشريعة علم غير يفسره حين لقيه الخضر مركو خضر لكل مي أما حتى خضر لقيه الخضر إلى أكرا كلمه نبي الخضر نبي واي في قول وولي في قول علماء وحكم مرمان نبي أها نبي كان وحال هذا أحد كلوسه وحيونا لكن أمد وحجارسي على الدين ولنا والدها مركا تاس علمي قاسيت أو لو كشف اللوح المحفوظ وأركاي علم الباطن على دها علمي كلا أو توردني مسلوسو دجيانا علم الشريعة اللي راها أو أمد الجارسي اللي يري وحي جنة يكون جلاينا أو قرن وحي نارت يكون جلاينا أو قرين إن كستو هدير علمي قاسيت تورد ولا نسخ القرآن يا نسخي أو النبي هور وحال يري نبي محمد وقتي سادات جارتين إذنك يؤمدين النبي محمد راعم معايا التوراة كوي الدم يهودي وحسب بدلين والعلم اللدني علم اللدني هو الذي كيوا في الحديث حديث كهذا الذي روي عن أبي هريرة اللي رضي الله عنه علم كان أو علم الباطن كان وحان نقول كره أبي هريرة علمي لجوري أو حديثك كجري قال أبو هريرة وحين حفظت وحن حفظ من رسول الله إلهي رسولك سبحان كحفظ صلى الله عليه وآله وسلم جرابين لبب جراب أو وعاءين لبويل ومن العلم علمك فبثثت للناس أحدهما مدوافر لي أو واسيف لي ذات كان أفدي لبدي جراب بتكون وأما الآخر كان كله فلو بثثت هدام في ذلها لقطعت مني أنا واحد إججري الهيدين هذا البلعوم كان ياد إججري الهيدين وحدها يا أبي هريرة معايا لي علوم تكجتوها وعلوم غائبة إن أصحاب تنفتوا المر إسكور إيمان دونان وحيال بدنا كجيران وحيالك مركوا وحا إججري الهيدين لغونتا إججري الهيدين وهو الذي كاسن وحالها علم باطن علي هذا محايا لي مفيدنا وكقصون تادتك وهو الذي هدنا علم الباطن وحالي لها في قول ابن عباس قول هذا الكي كجري رضي الله عنهما لو ذكرت لكم تفسير قوله تعالى ابن عباس وحوى ترجمان القرآن ترجمان وها الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن آية هدام فسر لها إلى آخر الآية آية آخر كذا إلى اللي قاره كما علمت وسان أقادي لرجمتموني ولحمين لهيدين
أي لم تحمل عقولكم عقلي نمو قادن لهن لدركه إنه هليره وفهم فكنتم حد أهان لأن تنكرون علي ذلك إن إنكريسين وفي لفظ آخر وحاكو جري لقلتم حده لهذا إنه كافر أساق قال ويأده لهذا كاسنا آية داسية معاني ذكروا كجرته عبد الله بن عباس والشيخ صحابي جليل كأه وحوى علم الباطن والعلم اللدني علم اللدني هدنا خوسي فسرايا وهو الذي كيوا في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي قول كيس كجري ما فضلكم أبو بكر ما إن كفضل البدنان بكثرة الصلاة صلاة بدنان تيدا ولا صيام الصون بدنان تيسا ولكنه شيء إن كفضل البدنان وقر في ستر حبت كيس كسقنادي وحوى سيدنا أبو بكر أصلا وحو إن كفضل البدنان شيء قلبديس كسقنادي أو يقينتي أو وحو قاري صديقين مدحوا إياه درجة الصديقين تاسنا وحي إهيد وأكتهين سيدنا أبو بكر شيء كسته oo nabiga uu leeyahay dheelmintii ama wax kasta ha noqoto horay shaki ba gelin dhag siinay qalbigiisu wax walaac yar ah ma soo gelin marka taas yaqiintaas weyn oo sidiiqinta madax u yahay taasna waxa waaye cilmiga baadinka ah وهو الذي كيوا أيضا في قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسجنه قولك كجريوان محير أسجنه إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى ذو جهل فيفتتنا وقد تقدم في ذاك أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال المسلمون الدم يرون أقبح ما يأتونه حسنا وحيري إني لأكتم عني وحان قرنا من علم جواهره جواهر تيسا كي لا يرى ذو جهل علم جواهر تأه صونة وأركن أوعت ذو جهل فيفتتنا مركز أكفنهم مد أن قارن علم قاسيته وأن هليلي كارين مركو أركو أما مقله بوده وقد تقدم في ذاك كاس حكوهر مري أبو حسن يا كوهر مري إلى الحسين وهر مري أبو حسن سيد علي واي مركا حسن وإشياء هذا الحسين وإشياء ووصى قبله وحقودر دارمي الحسن يا رب جوهر علم جوهرتي سل أركيه لو أبوح به هدام بنانك صوت لها وأن ظاهرين لها لقيل لي أنيق ليديه لها أنت ممن يعبد الوثن أديك وحاكم تاي سنمك كوا عابده ولا استحل رجال رجوا حيحللن لهايين مسلمين دمي ديجيجا يرون أيجو أركايا أقبح ما يأتونه وحي إلا إمانايان حسنا وحوناكس إنويه كما قتلوا سيؤدلين منصور الحلاج سيؤدلين في إفشاء الشيء في الانتيسة ومن ذلك كاس كميلة حيث قالوا يرى ما في الجبة إلا الله يا رجالك لو يري مركز سلاس دراد جبدة كمجرته إلهي موين ما إله ما شنقلي كاري هذا وادلين أصلا وحول جيدي ما في الجبة ما في قلبي أنا قلبي غير الله إلهي غير كيسا ما بكون جيربا إلهي حب كيسا يا قلبي كبوحة ساس أولجيدي أنا مركب ما فهم معايا الاستعارة كجرته أو وحوا جبدة وقلبي كنت يا الله صارا ساد أكتين هيل بكاسيت وصرت إلهي أسمي قلبي يا الله صارا أو حبتك مركب وحوليه xabadkay gudihiisa oo marka xabadkii meeshu ka sheegay jubbadu sheegay jubbadu qaatay oo xabadka ku deganaysa marka macnahaas qofka saas inuu u fahmayo la rabaa seef labood oo noqon ma fi yarawna wuxuu i'tiqaadina yarawna ereyga la yiraahdo yactaqiduna waxay i'tiqaadinayeen Abu Hasan waxa laga wadaa ay sayyidina Ali karamallahu wajhahu yarawna waxa lagu fasirayaa ereygaas waxay i'tiqaadin lahaayeen dadka marka taasna waxay ku jirtaa
cilmulbaadinkii ku jirtaa sidaas daraaddeeda waa la dilay xalaaj gardaraana lagu dilay marka lama sii hubsan kuwa aana garanaynin isticaarada yaa iska soo boodeen kan su-aasha shanaad waxaa waa low qaala waaxid mid hadduu yidhaahdo liaakhara nin kale hadduu yidhaahdo xajajtu waa soo xajiyey wa ajabtu waxaan ajiibay nidaaa nabiyillaahi ibraahiim alkhaliil nebi ibraahim naadadiisii calayhi salaam allaha yeele hadduu yidhaahdo mid waqaala alaakharu kan kalena uu yidhaahdo kayfa ajabta see u ajiibaysaa wa anta adigana fii zamanina haada zamankaynaana ku jirtaa oo dambe wa zamanu rasuulillaahi wa khaliilillaahi nebi ibraahim markuu joogay kaana baciidan canka zamankaas waa kaa fogaa see u dhacaysa isku zamanba ma ihidiine mana joogine see anaga beentaas maa noo sheegaysa hadduu mid yidhaahdo ay maa kunta mawjuudan mawjuud ma ahayn fii zamanihi zamankiisa jismaaniyan xagga jismiga maadaa taquulu lahu maxaad leedahay jawaabtu waxaa waa aquul jawaabta shanaad aquulu waxaan leeyahay lilaakhar kan kale oo muranka keenay oo yiri ma dhici karto nebi ibraahim zamankiisa waa horreeyey adina haddaa joogtaa ha ila imaanin warkaas kan yiri waxaan leeyahay anta fii khata'in cadiimin waxaa ku sugantahay gaf weyn liannaka kadabta waxaa beenisay qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiqin aayaddaasaa beenisay oo nebi ibraahim lagu yidhi naadi wa aquulu lahu aydan waxaan leeyahay iclam ogow ana hunaaka meeshaas caalaman caalam inuu jiro yusamaa lagu magacaabo caalam alarwaax lagu magacaabo ay ajaaba waa ajiibay lamaa kaana ruuxaaniyan markuu ahaa ruuxaani markuu ahaa yuu ajiibay su-aasha lixaad waxaa waaye wamaa taquulu maxaad leedahay can ilmujaadala doodii alatii waqacad dhacday bayna nabiyillaahi wa rasuulihi wa aadama wa bayna nabiyillaahi wa rasuulihi muusaa doodii ka dhex dhacday nebi aadam iyo nebi muuse doodii ka dhex dhacday oo nebi maxamed uu noo sheegayey doodaasayto ka waran maxaad leedahay waayo alatii taas waa waxay ahayd fi lxadiidi saxiix xadiidka saxiixa ah kan ku jira waaye aladii qaala fiihi uu ku yiri rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalama ina ruuxa aadama nebi aadam ruuxdiisa iltaqad waxay la kulantay maca ruuxi muusa nebi muuse ruuxdiisa faqaala muusa nebi muuse wuxuu yihi liaadamu wuxuu u yihi anta abulbashara tahay aladii kunta sababan ahaa liikhraaji owlaadika owlaadaada soo saarideeda min aljannati jannada laga soo saaro adigaa sabab u ahaa owlaadaada jannada ka soo saarideeda nebi aadamow adaa sabab u ahaa faqaala muusa nebi muuse wuxuu yihi markaas liaadamu wuxuu ku yihi anta abulbashar basharkoo dhan aabba u tahay aladii kunta sababan faqaala aadamu nebi aadam wuxuu yihi yaa muusa nebi muusow fa anta aladii kiyaa tahay istafaaka allaahu ilaahay uu doortay bikalaamihi hadalkiisa wakhada laka towreeta adoona jirin yuu towreed kuu jeexay biyadihi qudradiisa taluumunii ma indagaalaysaa calaa amrin amar qad qadarahu llaahu ilaahay uu qadaray qabla an yakhluqanii intuuna i abuurin biarbaciina alfa sana 40,000 oo sano ka horreysay qaala rasuulullahi nabigu wuxuu yihi faxaja aadamu nebi aadam muusa waa ka xujo helay ay halabahu bilxujati xujadii haaliba uga ahaaday marka labadii su-aaleed mid waataa og tahay waxay ku socotay naadadaasayto nebi ibraahim la siiyey oo dadka ku naadi la yiri caalamul arwaax ninka caalamul arwaax inuu rumaysan yahay waa la rabaa tan kalena waxay ku saabsanayd nebi aadam iyo nebi muuse is arkidiisa nebi aadam iyo nebi muuse is arkidooda
tan labaadna waxay ku saabsaneed nebi aadam nebi maxamed uu nooga sheekeeyey iyo waxaa is arkay nebi muuse nebi aadam waxaa lagu yiri adiga basharka aabba u tahay adigaa sabab u ahaa in jannada dadka laga soo saaro hadalkaas uu yiri nebi muuse nebi aadamna markaasaytu ugu jawaabay adiga ilaahay towradu kugu soo dejiyey uu kula doonay oo cilmigiisa ku jirtay towreed iyo ilaahay kula doonay oo wuxuu kaa dhigay haddana wuxuu kuu doortay kalaamkiisa inaad maqashid oo ilaahay aad la hadashid marka adoona jirinba yuu ilaahay doonay uu arrintaas kuu doortay taas muwaadna ogeynuu yidhi marka nebi maxamed wuxuu yidhi nebi muuse waa laga xujo helay oo nebi aadama qaalib ahaaday taasna maxaad ka leedahay atunkiru hada alxadiid xadiidka ma inkiraysaa wataquulu ma waxaa leedahay laysa mumkinan wax dhici kara ma aha lianna baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday zamanan zaman tawiilan dheer ow tusadiqu mase waa rumaynaysaa faidaa ankarta haddaad inkirtid fa anta kaafir gaala tahay waidaa sadaqta haddaad rumaysidna fa anta mu'minun mu'minata su-aasha toddobaad waxaa idaa qaala qaa'ilun hal hunaaka waxyun hadduu yidhaahdo mid waxyi maa jira uu helayo yaqacu ligayri rasuulin cid aan rasuul ahayn maa waxyi heli kara haddaad tiraahdid famaadaa yakuunu jawaabuka jawaabkaada maxaa waaye waxyi ma jiraan jawaabtu waxay noqonaysaa nacam hunaaka waxyun yaa jira yusamaa waxya alilhaam lagu magacaabo waxyi ilhaam waidaa qaala haddaad tiraahdid maa daliiluhu daliil ma u haysaa arrintaas waxyi ilhaam inuu jiro jawaabtu waxay noqonaysaa taquulu lahu waxaad u leedahay waxay ku jirtaa aayaddaas daliilka ah allatii fiiha amraani aayadda labada amar ay ku jirto wa nahyaani laba nahyi ay ku jirto wa bishaarataani laba bishaare ay ku jirto aayad yar oo kooban waaye laba amaraa ku jirta oo laysfaraayo laba ku jirta haddana layska reebayo laba bishaarana waa ku jirtaa sidaas daraaddeed qur-aanka fasaaxadaas asagaa iska leh oo cilmulbalaagada xaggeeda fasaaxo weyn waa ma jirto hadal yar ay ku soo gelayso laba amar iyo laba nahyi iyo laba bishaaro wa awxaynaa ilaa ummi muusa aayadan waay wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faidaa khifta calayhi faalqiihi fi lyami walaa takhaafii walaa taxzanii inaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliina labada amar oo ku jirta ardiciihi waa ficil amar alqiihina ficil amar waaye walaa takhaafi walaa taxzaniina laba nahyi waaye inaa raaduuhu ilayka waa kuu soo celinaynaa la yiri iyada wajaaciluhu min almurs haddana rasuula laga dhigaana laba bishaaro waaye waidaa aayadaasay ku jirtaa ilan aayaddan hadda waxaa ka fahmaysaa wa awxaynaa ilaa ummi muusa nebi muuse hooyadiisa rasuul ma ahayn marka waa kaas hayru rasuul waxyi uu helayo waxyu ilhaamaa la dhaha kaas waidaa qaalad hadday tiraahdo fardan laka iyadoo la qadarayo hadda aan qadarayna lacala umu nabiyillaahi muusa nebi muuse hooyadiis amarani rabbi ilaah ay amray an ardaca waladii waladkayga inaan nuujiyo ilaahay i amray fa idaa khiftu haddaan cabsadana an ulqiihi filyami inaan ku tuuro oo webiga ama baddaas inaan ku tuuro wa alla akhaafa inaana cabsan wa alla axzana inaana walbahaarin saasuu ilaahay amray hadday tiraahdo farlan iyadoo hadda joogta aad ku qadaraysid atunkiru ma inkiraysaa wa taquulu ma waxaad leedahay maa hiya rasuula walaa nabiya rasuulna ma aha nebina ma aha kayfa tatakalamu can illaahi ilaahay xaggiisa say uga hadlaysaa jawaabta waxaa waaye ankarta haddaa saas tiraahdidba qowl allahi tacaala ilaahay qowlkiisaa inkirtay wakunta awxaynaa ilaa ummi muusa waa inkirtay wakunta kaafirana ahaanaysaa wahaakadaa qowlu limaami alcaalimi rabbaaniyi sheekhii imaamka ahay caalimu rabbaani sheekh cabdulqaadir qowlkiisana waa sidoo kale oo muxuu yidhi wamaa qultu hada alqowla fakhran hadalkan ma dhihin faan wainamaa ata lidnu xataa yacrifuuna xaqiiqatii ilaa idan uu iiga yimaado xaqiiqadeeda say u gartaan su-aasha kale waxa waaye oo tobnaad maadaa taquulu ma waxaad leedahay fii qowli sayidina cali karama allahu wajhahu ana mubariqu lburuuqi hilaacyaalka anigaa iftiimiya hadalkaas uu yiri wa muxariku laflaaki falagyaalka oo xidigaha ay maraanna
falagyaalka aad ogtihiin ayagana falag kasta waa anaa dhaqdhaqaajinayo hadduu uu yiri maxaad leedahay taquulu waxaad leedahay inahu majaazun caqliyun majaaz caqli awey laa xaqiiqa ma aha say u dhici kartaa ma dhehaysid maxaa yeele majaaz caqli awey xagee majaaz ka yahay ay inahu khaliifatullaahi fi jamiici mamlakatihi ilaahay mamlakadiisa yaa wakiil camal sida malaa'igta wakiil looga dhigoo kale wakiil khaliifa laga dhiga arrin kamaa jacala allahu tacaala ilaahay suu uga dhigay albashara bani aadamka khaliifatan khaliif suu uga dhigay fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifatan ilaahay malaa'igta wuxuu u sheegay dhulka waxaan yeelayaa khaliifan yeelayaa khaliifadaas inay jirto khaliifadii ku socotaa ana mubariqu lburuuqi wa muxariku aflaaki xaqiiqada ilaaha barqiga keenaya aflaagtana ilaaha dhaqdhaqaajinaya falagyaalka marka xaqiiqadii ilaahay waay majaazna qofkuu doono bimacnaa khaliif arrintii waa uga dhigaya waxaa jira meelaha qaarkood ama axaadiista naftooda meelo aada la yaabaysaa jira nebi muuse xadiidka bukhaariga markaad aragtid waxaa arkaysaa nebi muuse waxaa loo soo diray malakulmowtki oo dharbaxay ku dhiftay ilaa wax ka gaar waxaasaa arkaysaa waxaa laga yaabaa ma dhici karta inaad tiraahdo hala soo boodin meesha waxaa jira waxyaalo waaweyn xigmooyin badana iska jiraan waa in aad isjirta inaad fahamtaa la rabaa muxuu ahaa xagga majaaska meeshuu soo gelayo wixii oo dhan iyo in la tusinayo rasuulyaalka iyo malaa'igta rasuulyaalka fadli badan fadligii in loo daahirinayo wamaadaa taquulu maxaad leedahay fii qowli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga hadalkiisa uu ku hadlay assuldaanu ninka suldaanka ah dilullaahi ilaahay hooskiisa waaye fii ardihi arladiisa ahaaday waxaa iskala boodaysaa suldaankii waa hoos oo arlada jooga maad leedahay oo ilaahay hooskiisa waaye oo ilaahay makhluuqi maa ku shabahaysaa haddaad ku shabahdid makhluuqa gaalaad tahay walam yakun lahu kufuwan axad waaye marka waa inaad tirahaa fiihi tashbiiha inaad garanaysid qur-aanka waa soo gelaa wawajhu shabahi waxaa waaye shabahadda meeshaa soo geli karta waxaa waaye kamaa yu'wa dillu hooska sida loogu hoydo oo loogu cararo min xari shamsi qoraxda kuleylkeeda sida looga cararo kadalika ta'wii ilayhi raciyatu raciyadana way u dumantaa waa u hoyataa waa u carartaa aducafaau raciyada ducafada ah min al aqwiyaai kuwa xoogga leh waa ka tegayaan waxay ku dacweynayaan lisuldaani suldaanka saasuu macnihii ku socdaa hooska la sheegayo waxaa waaye hooska sida loogu cararo qoraxda looga cararo sidaas suldaankana waa loo cararaa dadka ducafada ah oo la dulminayo suldaanka xaggiisa ay u cararayaan saasaa laga waa shabah marka xadiiska shabahaasaa ku jira tashbiihi haddaadna baranin iyadana dhibaatadeedii waay ma haddaa hadashad gafaa gelaysaa su-aasha 12 waxaa maadaa taquulu maxaad leedahay can ilqitaali dagaal aladii waqaca dhacay beyna sayidina cali karama allahu wajhahu waradiya canhu allah ka raali ahaaday wa beyna sayidina mucaawiya iyo sayid mucaawiya radia allahu canhu jawaabtu waxay noqonaysaa idaa qulta haddaad tirahda ana hada alqitaal dagaalkaas mudabaqun waxaa lagu dabaqay uu ku dabaqnaa biqowli rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nabiga qowlkiisa ida altaqa almuslimaani laba muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa seeftooda ay iskula yimaadaan falqaatulu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilay fi naari naartuu ku jiraa xadiiskii ahaa oo macnaha meeshaas haddaad la aadid oo asxaabtii kulligood ahlu naar waaye aad tiraahdid asa'ta aladaba adabta waa xumaysa wa asa'ta danna malihiina waa xumaysa wakadabta waxaad biirisa qowlallahi tacaala ilaahay qowlkiisa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم آيات داس واد بينس معايا السابقين تي مهاجرين تي أكو جيران يا أنصار تي راعين مركا إلهي ساسو أماني آيات قرآن بين السباء هداد لتمد وحاكو فسريس وتبشيرهم بالجنة الجنة اللي بشارينا
واد بينيسي في حديث كسوحوا قاتلهم كان وحدلا ومقتولهم كان لدينا في الجنة وياه وأخرجتهم وصارتي عن العدالة عدالة وكسارت وينتج من ذلك وحكت لنا أن يترك إن لقته كل ما روي عنه نحي لقوريون نجانا الله نبت قليو من ذلك الظن ملهاسة محايلي هذا ترى هديد أرين فسقي يكون عين حديث كذا حتى يال لقي سنين يا هذا الكاذي كدرنيش مركا خطرتها سجليسة لكن وإذا قلت هذا ترى هديد بتالهم دجالك كذا حد عبيت هاد دذالوا أو دينتي وذا فهمايين فمن أصاب منك أصيب فله أجران لما أجروا لي هاي كعلي سيدنا علي واي ومن تبعه انت راعدي ومن أخطأ منك جفنه فله أجر واحد هل أجروا لي هاي كمعاوية سيدنا معاوية ومن تبعه انت راعدي فقد أصبت صواب كياد أصيبتي سؤال شاسد هي التبناد وحاول ماذا تقول محاد ليلة هاي عن تخلف الإمام مالك قال المريد ديسا إمام دار الهجرة رضي الله عنه الله كرر لي هذا عن جماعة وكتر 20 سنة لبعتن سنة إمام مالك جماعة أولى تكنين إمام كويناها هجرة دات لوسو هجرة ومدينة هي إمام كذا محاد ليلة هاي جوابته وحوا إذا قلت هذا ترى لو لم يرى له أي التخلف قال المريض سيتو هدون أركينين أون أهلين عذر يبيح له تخلفا وبنينايه إنه جماعة كتجو أو تخلف جرجس وكتو كذا ما تخلف ما قال المريض هين هذا ترى هديد أو نن عالم وأها ونكاس إمام كأهدني مو حمينا ترى هديد أصبت وأصيبتي وأحسنت وحاها جسي أذن مليه سؤال شافري تمناد وحوا ماذا تقول محد الليذة هاي عن قول أمير المؤمنين سيدنا علي أمير المؤمنين قول كيسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله كرر لي هذا بعدما سمع مركم مغلي قارئا من آخرنا يقرأ آخرنا قوله تعالى إلى يقول كيسا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سيد عمر وأمير المؤمنين والجنة اللي يقول بشارية 10 المبشرين بالجنة كجري يا آيات مغلي وحجر الدار تآخره وحا إسكانه آيات ليسا كو أندونين علوا إسكوريالد في الأرض اللي إسكو كوريالو ولا فساد الأرض اللي فساديين أندونين تذكاسا جنة الجلايان مركز وحير أما الفساد فلا نريده فساد فرت مدونين نقول كأنها فسادنا وأما العلو إسكوريالدنا ففي نفس الشيء نفس الدي وحاء وجروي نفس الدي ذا مركز موحد لها مركز دو ساسيري آيادين أي ترددك علو وكش إسكوريالا جنة مقلايان سيد عمر جنة مقلاي ما هو كلسو بوديسا جوابته وحواي الصحراء إذا قلت هذا تراد وأجبت أجبت لم يقل ذلك مدهن إلا هضما لنفسه نفس الديس وجبنا يمويه وفانك وديدايو فقد أصبت صوابك يا أصيبت اللين نبيدي جدك ذو دبجوغا وما أبرئ النفسية دي قرآنك كجرتي والنبي يوسف وين سؤال ششرية تبناد وماذا تقول موحد لنا عن قول الحسن البصري ما حد كلينا أيضا رضي الله عنه لو حلف هدو دار تحالف مثل رنايا إن أعمال حسن البصري أعمال من روح أعماشي سواي لا يؤمن عن رمين بيوم الحساب يوم القيامة عن رمينين لقلت له وحانيه لها أصدقت وارشيكتي ولا تكفر عن يمينك دارتا ذنها ككفار قذن يعني له لها ساسو سيدنا حسن البصري جوابته حواي مركا هذا الكاس يجري موحد لذا هاي هذا الكاس سيتو تابعي سوين وذنك ما أحمين يساء أو يوم القيامة مر مين ما لذا مؤمن بماءها ما لذا جوابته وحوا إذا قلت هذا تراد وأجبت أجبتد قالها واجر هضما لنفسه نفس الديس جبناي أو فانك وديداي يؤيري فقد أصبت الصواب وأصبت
والحسن البصري حسن البصري كستو شيكدي سوحيانا كتابانينا وهو الذي وقيل فيه الغيري كيف يضل قوم سيئوا مايان فيهم الحسن البصري وكجيرو رضي الله عنه الله كرال هذا وهو الذي كيوا لما ولي مركو تولي الحجاج بن يوسف العراق حجاج بن يوسف aad ogtihiin markuu tawaliyey ciraaq oo madax ka noqday wadagaa uu qooqay fii wilaayadiisa uu ku kibray watajabbara uu kibray kaana alxasanu xasan wuxuu ahay axad arijaali raggii midkood alqalaa'ili yaraayeen aladiina tasaduu banbaxeen lidugyaanihi qowqiisa wajaharuu bayna annaasi dadka dhexdoodana qayliyeen bisuu'i afcaalihi falkiisa xumaantiisa wasadacuu jeexeen bikelimatil xaqi kelimada xaqa ah fii wajhihi wejiga ka saareen min daalika waxaa ka mid ah qisadaas haddii la taabto ana alxajaaj banaa wuxuu dhisay linafsihi nafsadiisa binaaan dhis fii waasita meesha la yidhaahdo madiina magaalo waaye mutawasita u dhexaysa bayna albasrati waalkuufa u dhexaysa falamaa faraga minhu markuu dhameeyey daartaas dhisideeda naadaa fi naasi dadka dhexdoodu naadiyey an yakhrujuu inay soo baxaan lilfurjati calayhi aaryiqaadasho waducaai lahu inay u duceeyaan bilbarakati daartaasita inay barakowdo falam yasha alxasanu sayidunaa xasan ma uu doonin an yufawita calaa nafsihi nafsadiisa inuu ka tabiyo fursata ijtimaaci nnaasi dadka kulmidooda fursadeeda haadihi tan ah فخرج إليهم وصوبحي ليعدهم إنه وانيو ويذكرهم إنه حسوسيو ويزهدهم إنه الزهديو أو نعسيو إنه وانيو إنه دتك أدونك عن عرض الدوية ده متاع ذا جعيل كذا أو قلبك اللي قلنايو إنه دتك نعسيو ويراقبهم إنه جعليسيو بما عند الله إله اكتيس وحي هذا عز وجل ولما بلغ مركو قارع المكان مكانك ونظر أوفيري إلى جموع الناس ذاتك كل مدودة وضوافهم دوام وريقدودة بالقصر الدارتي المنافس الرئيسي يكون وريقايان وقف فيهم خطيبا لحدود ذاتك استاغي وكان في جملة ما قاله وحيير وحاكمدها لقد نظرنا وافيرنا في مبتنى وحو لسي أخبث الأخبثين كوحن كان أوحن فوجدنا وحان هلنا أن فرعون شيد إنه لسي أعظم مما شيد وحو لسي وحكوين وبناء لسي أعلى وحكسر مما بنى وحو لسي ثم أهلك الله فرعون إلى فرعون هلاقي ليت الحجاج حجاج وشليتذي إذا يعلم أغادينا أن أهل السماء سمد إهل كذا قد مقتوه إنه عرودين وملائكتي ملكس لوغا عريسان yahay carada ilaahay uu careysan yahay daraadeed ee ka dhalanay wa ana ahl al-ard arlada ehelkeedana qadiga ruuhu inuu kadiyay wamada waa tagay yatadashakadi waa waday sayiduna xasan al-Bisri yatadafaqu asagoo burqanaya على هذا المنوال جدكاس حتى أشفق عليه إلى أبقان أحد سامعيه كوي مقلاي متكون من نقمة الحجاج حجاج مصيبة ديسة إلى أبقان كبلايا كل عدى إسر هذا فقال له حويري كاس هدلي حسبك يا أبا سعيد أبا سعيد أبيه سو انت كفاية هذا ناس أكو تورتي هسي ترارين فقال له الحسن وحين لقد أخذ الله إلهي وقفت الميثاق بلا على أهل العلم علم قدتك يقانا ليبينونه إن أعديان للناس دتك ولا يكتمونه للناس دتك أين ولا يكتبونه أين وحنا كقارن حقي وفي اليوم التالي ما ننتهي اللباد دخل الحجاج حجاج وحصوق إلى مجلس كيسة وهو يتمزق أسوي جيح مايه من الغيظ عرض درادد كركيس وقعي وقال للجلساء كوي فدي وحويري تبا لكم وسحقا ليراش عدقات ليراتين يخساروا يدليذهن يقوم عبد أدونا استاغايا من عبيد أهل البصرة أهل البصرة أدونا منكم ذا كمد ويقول وحوليه فيما يشاء وحو دونه أن يقول إنه يراه ثم لا يجد فيكم إذن كان أحدين مكة هلايو من يرده وحر الدية والله إلهي مقعيسان فلارنا لأسقينكم إن ورابيان أو إن ورابيان من دمه ديجي سعد عبيسين يا معشر الجبناء فليالك جماعة ذي
ثم أمر وحو أمر بالسيف السيفتي والندعي هرقي قفك مدح لغا جري مدحيس لغو ججبيناي بساد جوجل ومن جلد هركة هات يفرش والجوجلا تحت المحكوم عليه بقطع رأسه مدحيس لغو ججبيه يا مهرقة صورنيا فأحضر البساد جوجشي ولا كيني ودعي بالجلاد كي جلادك واحد الجيران والله يري فتمثل واقفا بين يديه هرتيسويم دعا بالجلاد وعي فتمثل واقفا بين يديه قالوا يرماتنين عنكوها ياي وحدها اياه حجاج ثم وجهه الى الحسن ارنتي وحو جهي حسن بعض شروده حسن وحالو سو ديري سيد حسن بليسك قاركيس كان ليري وأمرهم وحو أمر أن يأتوه به إني كانان وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن وحير بإنت للجوغ وايمن فشخصت نحو الأبصار إنه يردنا كتاقمين فلما رأى الحسن مركو أركي السيف وسيفتي والندع مقاركي والجلاد هرقي حرك شفتيه وحود نقنقاجي لبذي سفروا رياض ثم أقبل على الحجاج حجاج قابلي فلما رأه الحجاج مركو أركي على حاله هابه هيباس إلهي أوصاري حجاج جاب القريرة بأشد الهيبة يو إلهي ساري وقال له وحيري ها هنا يا أبا سعيد أبا سعيد أنت صافريسو ثم ما زال كمنزول يوسع له إنه واسعنايه ويرحبه أشد الترحيب ماشي أوفديي أوفريسنايه والناس ينظرون إليه وافيرنا في دهشة ورير أرنتاس انتي وحكي جرتاي ددك حتى أجلسه إلى وكفريسيو على فراشكيس وقال وحور أنت سيد العلماء علماء مدحدي دياتهاي ثم دعا بغالية ويري غالية وحال يرى هذا النوع كم من الطيب أنواع من الطيب يمزج لبرحايو ويتطيب ليسكو أدقيه وطيب بها لحيته قركو كمري وودعه واسقوتي ولما خرج الحسن من عنده سيد حسن مركو بحي نينكي قوديناي أو مدحد واقرينبا مركو كسو بحي منيشي تبعه صاحب الحجاج وحصور راعي حجاج صاحب كيسة وقال له وحور يا أبا سعيد لقد دعاك الحجاج حجاج وكويري لغير ما فعل بك ترحيبك وكسيي سئان أهين وإني رأيتك وحنك أركي عندما أقبلت مركز سوقا بالشيء ورأيت سيفتي أد أردت والندعة قد حركت شفتيك لماذا فروريو ديار نقاجسي فماذا قلت محاتري فقال الحسن وحيري لقد قلت وحان إيري يا ولي نعمتي نعمة إلهي إلى حريرنا يو وملاذين مجنجلك يو عند كربتي مركان كربيسنا اجعل نقمته مصيبة أسيق سوى مرسيسد بردا قبو كدق وسلاما نبتقلي علي كركي وقدق كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم نار تسا قبو وقدق تي نبتقلي نبي إبراهيم وأخذ العلم علمي وحوك قاتي انت سوى شيكدي علمي وحوك قاتي سيد حسن البصري عن السيد عبد الله بن عباس أو ترجمان القرآن وأخذ أيضا وحقيقات من كبار الصحابة أصحاب تكون ووين رضي الله عنهم وروى هذا وحكوري عن عثمان بن عفان الخليفة الثالث وعن علي وكوري بن أبي طالب الخليفة الرابع وأبي موسى الأشعري وكوري وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم ونسب الحسن إلى البصرة حسن البصري وحالون نسبي بصرة وحال يري بصرة حسن البصري بصرة الرأسية لأنه لما بلغ مركو جاري 14 سنة أفر يتمنجر انتقل وجاري مع أبيه أذوق اسم عيسى إلى البصرة البصر عاد بصرة يوتجي واستقر فيها وكسقنادي مع أسرته دقيتان كاس دقي دراديد يا ليري بصرة لون نسبيي ولادته للدي سادات ربتت بشرت به زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحلو الشيء نبي زوجديس أم سلمة رضي الله عنها الله كرالي هذا لأن مولاتها تي أم سلمة حريسي خير مقعد لديه جري أمتها وضعت حملها أوركيد وادجيسي
فغمرت الفرحة فرح وحود دبولي فؤاد أم المؤمنين قلبي ذي فأرسلت رسولا يدرتي ليحمل إليها الوالدة إنه حنباره ومولودها والدتي دشاء خير أهيد هلاك اللي ترنبي زوجتي ساديسة ومولودها يوكي دشاء حسن البسرة لتقضي أن يكون لما فترة نفاس كوقت جيسة في بيتها أقل كذا وكانت خيرة وحي هاجت محبوبة للجعلها لدى أم السلمة أكتر فلما وقعت عينها أم السلمة لبدأ إنه مركي يكون على الطفل يركي امتلأت نفسها نفسده وي بيحسنتي أنسا به وهشنيش وقالت وحيتر أسميتي غلامك يا خيرة مقع مؤية الشيء ويل كادي فقالت وحيتر كلا مايا لقد تركت لك أذان كاغتري فقالت أم المؤمنين وحيتر نسميه وحنكون مقعابين الحسن والفرحة فرحة ليست مقصورة بها كما قابنين على بيت أم المؤمنين أقل كذا وإنما شاركها فيها وحلو ذاك سري بيت آخر بيت كلا فرحة لو ذاك سري من بيوت مدينة أقل ذا كمده هو بيت الصحابي أقل كيسواء الجليل وينا زيد بن ثابت لدهي كاتب وحي رسول الله إلهي رسول كيس وحي سكي قرأي صلى الله عليه وسلم وذلك وبيان ذلك هذا الكاس عدينتي سوحا وهي أن يسار والد السبي والد أها كان مولا له كل حري أها أيضا وتربى وبرباري في حجر زوجه من زوجات النبي زوجات كيسا كمل صلى الله عليه وسلم يحسن البسر كبرباري وهي أم السلمة وكانت وحيد من أكمل نساء العرب عربت ناقوهدة أقو كامل لمبدا عقلا وقت جيدا وأوفرهن فضلا أقو بدن ليرات كان oo fadligana ugu badan ay aksarahunna kama kaanat say u ahayd min awsaci zawjaati rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa zawjaadkiisa tan ugu waasacnimo badan cilman xagga cilmiga wa aksarihinna ugu badan riwaayatan warin canhu laga wariyo xaysu rawad ay warisay can nabiga sala allahu calayhi wasalama 387 xadiidan 387 xadiis فكثيرا ما كانت وحاءات أبدنا خيرة تخرج إني بحضه من البيت أقل حسن المصر هو يدي سوي لقضاء حاجتها حاجتها إني سوق جدته وكان الطفل وحوها أرض عنوغاي يبكي وأويناي من جوعه جاجديسة جاجد درادد لأويناي فتأخذه أم السلمة وسوق هذه إلى حجرها لبتير وتلقم ثديها ناس كذا يوحقوا جلنيس أفكا لتصبره به إنه كصبر سيسو ولشدة حبها إياه جعلك أي جعشها درنانتيسا يدر ثديها عانه هذا وحادرنا لمنا عانو لدرنا سائقا كاملا في فمها أفكيسا وترضعه وحين جنس السبية يركا وتسكته عليه وأكو آمسنيس وصارت أم السلمة ونبقى وينتي سعيد أما لحسن هوي أنغتي سيدنا حسن البصري من جهتين اللبط فهي أمه هو يدي سواية بوصفها أحد المؤمنين إلى المؤمنين تكمل هاي زوجات كالنبي جناه أمهات لنا وهي أمه هذا هو يدي سواء عكلا من الرضاع النجنة أيضا وهو من الذين كمل أها عملوك عمل فلان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قول كيسا أفضل الجهاد كان أفضل البدن كلمة حق أو عند سلطان جائر أو حق عن ربين هرتيسة إلى حق الشيء جهاد كاس أفضل البدن كاس يوكو عمل فلان حديث كأها وعلى محاوغة أن سيدنا الحسن البصري ولع أكثر ما ولع أد وحلوز جعليسي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأد أجعلا كرم الله وجهه ورضي عنه الله كرم هذا فقد راعه منه سلابته وحققات أذيق في دينه الوقت كذا وإحسانه لعباده الدومن كله إحسان فلو زهادته
adduunka zaahid laga ahaado wa xikmatuhu oo ka qaatay iyo aqwaaluhu aqwaashiisa aljaamicatu kulminaysay wa cidaatuhu wacdiyaalka allatii tahuzu lquluuba quluubta lulaysay hazan nulid fatakhallaqa wuxuu ka dabeeca yeeshay biakhlaaqihi akhlaaqdiisa fi taqwaa rabbi ka cabsashada iyo walcibaadaati cibaadaadka waqad caasha alxasanu lbisri waa noolaa naxwan min 80 caaman 80 sano wax ku dhow mala'a khilaalahaa wuxuuna ka buuxiyey sanooyinkaas cilman cilmi wa xikmatan xikmo wa fiqhan fahmid watantahi silsilatu sheikhi jiilaani sheekh cabdulqaadir jiilaani silsiladiisa ilaahi asaga kusoo dhammaanay wa ilaa amiiri lmu'miniina u gudbaysaa cali bin abi aalib radiallahu canhu wa ilaa khayri khalqillaahi u gudbaysaa haddana wa ilaa jibriila wa ilaa alxaqi jala wacalaa